Qisadeena maanta waxay qusaysaa xiddiga ugu caansan taariikhda kubadda cagta ee geeriyooday Diego Armando Maradona. Muuqaalkaana waxaa kusoo gudbin doonaa sheekada runta ah ee ka dambeysay inuu ciyaaraha ka fadhiisto. Qisadan waxaa kasoo xiganay ninka lagu magacaabo David Yalob. Waa qoraaga buugga lagu magacaabo How They Stole the Game ama siday u xadeen ciyaarta. Inta u gudagelin nagu soo biir daawade adigoo mahadsan. Runta markii laga hadlo sheekadan waxay taariikhdeeda u laabanay koobkii adduunka ee lagu qabtay Italiya sanadkii 1990kii. Dadka ku takhasusay kubadda cagtana waxay sheegaan haddii uu Maradona nasiibkiisa ugu wanaagsanaan lahaa wuxuu ku guuleysan karay koobka adduunka ugu yaraan 3 jeer sida Pele oo kale. Marka koowaad waxay noqon kartay 1978 markii uu tababaraha xulka qaranka Argentine xilligaas Cesar Menotti oo uu xulka ku soo darsaday, laakiin nasiib darrada Maradona xulka waa laga reebay waayo da'diisa ayaa aad u yareed goortaas, wuxuuna kaliya jiray 17 sano. Wuxuuna tababaraha u arkay inuu aad u yaraa. Inkastoo Pele uu ku guuleystay koob addoomihiisii ugu horeeyay sanadkii 1958 asigoo 17 jir ah, waxaana lagu qabtay Sweden. Si kastaba ha noqotee, Maradona waa laga reebay koob addoonkiisii koowaad, taasoo ay ku guuleysatay Argentina oo dhulkeedana lagu qabanayay sanadkaas. Kadib Maradona wuxuu markiisii ugu horeysay uu kala qayb galo waddankiisa koobka adduunka, waxayna ahayd 82, taasi oo lagu xasuusto roosihii la siiyay Maradona ciyaar u dhaxaysay Argentina iyo Brazil, iyo guud ahaan qaab ciyaareedka Argentina oo aad u liitay koob addoomahaas. Wuxuu ku gaaray heerkiisii ugu fiicnaa ee ugu sareeyay Mexico markii uu waddankiisa la qaaday koobka adduunka 1986. Inkastoo xulka aad u jilcanaa bandhigoodana aad u liitay, hase yeeshee Maradona ayaa dusha saartay kuna hogaamiyey qarankiisa inay ku guuleystaano koobka asiga dartiis. 1990kii qaranka Argentina ha iska xumaadee nasiibkaas saacidayay mar ka rafaad ugu badi, mar igoorooyin iyo goolal waqtiyada dambe oo la dhaliyo waxay soo jiitamaanaba. Maradona qarankiisa wuxuu la yimid finaalka oo ay la ciyaarayeen Jarmalka, laakiin sida la wada ogyahay Argentina nasiibka ayaa ka dhammaaday, waxaana looga raayay gool rigooro ahaa oo uu ka dhigay albitarihii Meksikaanka ahaa. Waxaa kaloo ka ganaxnaa ciyaartooy badan jaalayaal dartooda. Maradona wuxuu u arkay in FIFA ay kasoo horjeedo Argentina maadaama ay ganaaxa ka qaadi weysay ciyaartooyda iyo in roose la siiyay finaalka naftirkiisa, haddana rigooro qaldan laga dhigay ciyaartaas, iyo albitaraha oo ahaa Mexican, iyo FIFAna inay ugu dhiibeen ciyaarta sida uu ugu jiifto Argentina. Sidaas ayuu ku andacooday Maradona. Sidaas darteed Maradona ciyaarta kadib waxaa dhacday dhacdo caan ah. Markii biladaha la isguddoonsiinayay wuxuu diiday inuu salaamo Joao Havelange, Braziliankii xilligaas ahaa madaxweynaha FIFA, wuxuuna u arkay inuu asiga ka dambeeyay guuldaradii soo gaartay Argentina. Ka hor ciyaartaas semifinaalka waxaa isku soo aaday Argentina iyo Talyaaniga oo ciyaaraha ayaga martigelinayay. Ilaahay amarkiisana waxaa la go'aamiyay ciyaarta in lagu dheelo garoonka Napoli, Maradona gurigiisa, taasoo Napoli u hogaaminayay goolo waaweyn. Muddo 5 sano gudahooda wuxuu kula guuleystay Serie A-da, Coppa Italia iyo Europa League-ha. Maradona xilligaas wuxuu saxaafadda u sheegay in taageerayaasha Napoli ay yaqaanaano cidda ay taageerayaano, wayna og tahay in mar walba ay dulmiyaano dadka reer waqooyi sida Roma iyo Napoli, taasoo dadka Talyaaniga ay u qaateen inuu farageliyay arrimahooda khaaska ah iyo hadal aan laga fiirsan. Sidaas darteed taageerayaasha Talyaaniga
badankooda way kasoo horjeesteen Maradona iyo Argentiin, xitaa qaarkooda waxay ugu waayeen calanka Argentiin, laakiin waxaa jireen taageerayaal ka soo jeedo magaalada Napoli oo u taageerayay Argentiin Maradona dartiisa. Nasiibka wuxuu saamaxay in Argentina kaga rayso Talyaaniga rigoorooyin oo ay finaalka u gudubto. Kadib dhammaadkii Koobka Adduunka 1990, Maradona wuxuu kasbaday 2 cadow oo halis badan. Midka koowaad, shacabka Talyaaniga; ka labaadna, Joao Havilland, madaxweynaha FIFA. Talyaaniga isla sanadkii xigay 1991, dabcan arrintan hore way u ogaayeen, waxayna soo bandhigeen in Maradona uu qaato kaniiniyaal sharci darro ah. Sidaas darteedna waxay ka joojiyeen ciyaarista kubadda cagta 18 bilood. Taasaaba ku filneed inay soo afjarto joogistiisii Talyaaniga. Waxay kaloo ku eedeeyeen inuu canshuurta ka dhuuman jiray. Kiis weyn oo qaab daran oo Maradona Talyaaniga u yaalo, kaasoo ku kalifay inuu meeshaas isaga tago. Argentina ayuu 2 bilood joogay, wuxuuna isku dayay inuu dib ugu soo laabto ciyaarista kubadda cagta, laakiin mar kale waxaa lagu qabtay asigoo qaadanayo kaniiniyaal daroogo ah oo gacantana kula jiro arrintaas, waxaana si guud ahaan looga mamnuucay kubadda cagta. Taasina waxay ahayd dhammaadkii koowaad ee Maradona. Xitaa wuxuu iska casilay matalista xulka qaranka iyo naadiyada. Da'diisana waxay ahayd 32 sano. Dadka dhanna waxay u maleynayeen inay Maradona u dhammaatay. Waxaa la gaaray isreebreebka Koobka Adduunka 1994, waana markii ugu horeysay ay Argentiin ciyaareyso Maradona la'aantiisa. Waxayna martay dhib iyo saxariir aad u badan, inkastoo xilligaas uu qaranka haystay xidigo aad u wanaagsan. Natiijadii ugu xumeyd ee weligooda loogu badiyo waxay kala kulantay Colombia, ciyaar ku dhammaatay 5-0. Nasiib xumadooda, ciyaartaas waxaa lagu ciyaarayay magaalo madaxda Argentiin, Buenos Aires, oo la micno ah in Argentiin la duleeyay Maradona la'aantiisa. Waqtigaas markii la marayay, waxaa isdiyaarinayay dowladda adduunka ugu weyn si ay u martigeliso Koobka Adduunka. Dowladdaasi cid kale ma ahan ee waa Mareykanka. 1994 markeedii ugu horeysay. Dowladdan awoodda iyo dhaqaalaha badan waxay isku diyaarinaysay inay qabato Koob Adduun aan weli horey loo arag quruxdiisa oo lala yaabo weynankiisa. Waxaana kormeera ka ahaa feelkan diyaargarowga wasiirka arrimaha dibadda qaramada midoobay ee hore oo lagu magacaabo Dr. Henry Kissinger, kaasoo jeclaa kubadda cagta. Kissinger oo uu weheliyo madaxweynaha midowga isboortiska Mareykanka iyo maamulka qabanqaabinta ayaa waxay la kulmeen madaxweynaha FIFA Joao Havilland. Wuxuuna yidhi, waxaan u baahannahay xidig weyn oo koobkan loo matalo. Shacabka Mareykanka waxay aad u jecel yihiin xidigaha waaweyn. Markii ugu horeysay oo aan soo gelinaynay kubadda cagta waddankeena 70-yadii, waxaan keenay ciyaartooy fac weyn sida Pele, Eusebio, Beckenbauer iyo Cruyff. Marka waxaan u baahannahay xidig weyn inuu ka ciyaaro Koobka Adduunka. Havilland wuxuu ugu jawaabay, waxaa joogo Romario iyo Bebeto oo ka socdaano Brazil. Waxaa kaloo joogo Klinsmann oo Jarmal ah iyo Baggio oo Talyaani ah. Magacyo waaweyn ayaa ka soo qayb gali doono tartankaas. Dabcan Kissinger wuu fahansanaa kubadda cagta, wuuna la socday meesha ay wax marayaano. Xitaa mararka qaarkood markuu fursad helo, garoomada ayuu daawasho u tagi jiray. Wuu qoslay Kissinger wuxuuna yidhi, kuwaasina yeeyihiin kuwaas Amerika qof ka yaqaano ma lahan. Waxaan rabnaa xidig weyn, waxaan u baahannahay megastar kaasoo u dhigmo heerka diyaargarowgeeda, soona jiidan karo shacabka Mareykanka. Shacabkaas oo wax badan aan ka aqoonin kubadda cagta. Waxaan rabnaa
inaan jeclaysiino kubadda cagta waxna aan ka barno. Wuxuu dhahay waxaan u baahannahay Maradona. Havilange wuxuu dhahay Maradona wuxuu fadhiyaa in ka badan 1 sano, wayna u dhammaatay, daroogana waa lagu soo qabtay. Adiga balaayadaas ayuu tahay madaxweynaha FIFA, suuragalna ma ahan inuu ciyaaro. Kissinger wuxuu dhahay ilaa Maradona ayaan rabnaa, warkana meesha iigu xir. Saad u wada ogtihiin dalabaadyada ee Mareykanka ay dalbanayso in marmarka qaarkood ay yihiin amaro. Shirkii meesha ayuu ku soo gabagaboobay. Waxaa la sheegay Havilange inuu taleefon ka wacay Grondona. Xusuusnaada daawadayaal, sheekadan waxaa ka soo xiganay buugga la dhaho How They Stole the Game. Wax anaga alifaneynana ma ahan. Aan u soo laabano sheekadeynii. Waxa uu soo wacay madaxweynaha midowga kubadda cagta ee Argentine, Grondona, iyo sidoo kalena ah madaxweyne ku-xigeenka FIFA. Wuxuuna dhahay waxaan u baahannahay Maradona inuu la ciyaaro Argentine koobka adduunka. Grondona wuxuu ugu jawaabay waan fiirinaa waxaan samayn karo. Wuxuu u yeertay Maradona, gudoomiyaha caafimaadka u qaabilsan Argentine iyo tababaraha Maradona kulan qarsoodi ah. Wuxuuna yidhi Maradonow, waxaana laga dalbaday koobka adduunka inaad dheeshay diyaar ma tahay. Diego markaas culeyskiisa waxaa ku kordhay in u dhaxayso 15 ilaa 20 kilogram oo ka badan heerkii caadiga ahaa. Caloolana u deysneed, sawiradiisa caan waaye markuu cayilay. Maradona wuxuu dhahay waan jeclaan lahaa koobka adduunka inaan ciyaaro, laakiin anoo saan iyo culeyskan aaday u adag tahay. Ani waxaan u baahanahay waqti dheer si aan u diyaar garoobo, waqtigana ciriiri buu nagu yahay. Waxaa hadlay gudoomiyihii caafimaadka, wuxuuna ku yiri Grondona, aniga haleydaayo ninkan diyaarintiisa, anaa ku dadaalayo. Waxaana u bilaabaynaa almiito asiga qaas u ah, meelaana ku xareynaynaa oo ku taalo Cuba. Waxaana u yeeraynaa dadku takhasusay nafaqada, dadku takhasusay sida dadka loo caateeyo. Waxaana u adeegsanaynaa barnaamij adag, ha noqotee dhanka cuntada iyo almiitada. Waxaana isticmaalaynaa kastoo daawooyin ah. Daawooyinkan oo ka caawin doona Maradona inuu iskaga dhimo culeyskiisa. Marka daawooyinkan waxaa ka mid ah ephedrine, maadadaas oo mamnuuc ah isticmaalkeeda maadaama ay ka tirsan tahay daawooyinka wax kiciya ama qofka waxqabadkiisa kor u qaadayo. Sharciyada FIFA-na ma ogolo. Grondona wuxuu dhahay taas aniga ii daaya. Wuxuu kadib ku warceliyay Havilange madaxweynaha FIFA, wuxuuna ku yiri jawaabtu waxay tahay haa, waan awoodnaa inaan Maradona dheelsiino koobka adduunka sanadkan, laakiin wuxuu qaadan doonaa daawooyin mamnuuc ah. Ma ii ballan qaadi kartaan in Maradona laga baari doonin daawooyinkaas wax kiciyo si uu iskaga dhimo culeyska zaa'idka ah, ugula qayb galo wadankiisa koobka adduunka? Waxaa la dhahaa inuu Havilange ugu jawaabay you have my word, oo la micno ah waa balan aan ka qaaday ninkaas in la baaraynin. Alxaasil, hawshii ugu galeen Maradona Cuba ayaa lagu xareeyay. Meeshaas ayaa si fiican loogu diyaariyay. Waxaa la gaaray xilligii la ciyaari lahaa koobka adduunka 1994. Maradona wuxuu yimid asigoo da ahaan jiro 33 sano iyo 8 bilood, laakiin aad u diyaarsan iyo jirkiisa oo jarjaran oo xitaa ka wanaagsan markii uu 20 jirka ahaa. Adduunka dhanna ayaa la yaabay isbedelkiisa. Xulka Argentine xilligaas ay haysatay wuxuu ahaa sidee badanaa arkeen dadka xogaha raadiyo inuu yahay xulkii ugu fiicnaa ee soo mara Argentine weligeed. Xitaa wuxuu ka wanaagsanaa kii ku guuleystay 78 iyo xitaa ka fiican kii ku guuleystay 86. Maxaa yeelay
94 waxa uu joogay xulka Argentiin ciyaartoy ay ka mid yihiin goolalihii caanka ahaa ee Gabriel Batistuta. waxaa kaloo u joogay Caniggia, ku dar Diego Simeone kaasoo dhexda ka talinayay sida uu hadda ugu taliyo Atletico Madrid. waxaa la jiray Arian Ortega, fanaanka khadka dhexe. waxaa joogay xidigo aad u waaweyn iyo goolhayaha Goy Cochea. intaas ayagoo haystaano Maradona u sii korsaar oo almiito qabo iyo xirfadiisa oo qof wax ka qaban karo uusan jirin. runtii Argentiin ciyaaraheeda waxay ku furatay qaab waali ah. waxay 4 ku dhufatay Greega. Maradona hal ayuu caawiyay, hal qurux badanna wuu dhaliyay. Argentiin waxay u socotay sida duufaanta oo kale oo burburinaysa wixii ka hor yimaado. ciyaartii xigtay waxay ka raayeen Nigeria 2-0. Nigeria oo iyadana sanadkaas soo qaaday koobkii Afrika oo na tumaysay xulalka Yurub. kadib 2 ciyaarood ay ciyaartay Argentiin waxay xaqiijisay u gudbadeeda wareegga 16. meeshaas markii la marayay waxaa la sheegaa in shir qarsoodi ah lagu qabtay guriga Ricardo Caxiera, sodoga Havillange oo haddana ah gudoomiyaha isboortiska Brazil. iyo Havillange-na waxaa dhex maray hadalladan soo socdo. Havillange wuxuu dhahay inuu gudoomiyaha ku yiri, Havillange, adiga intaa gudoomiyaha isboortiska Brazil ahead waxaan ku guuleysanay 3 koob adduun. marka madaxweynaha FIFA noqotayna hal mar xitaa kumaan guuleysan. koob adduunkaana kuugu dambeeyo intii lagu ridin madaxweyne ahaan. Caxiera ayaa hadalkiisii sii raaciyay, tani waa fursadii ugu dambeysay ee Brazil koobkan ku qaadi lahayd. laakiin Argentiin saan filaynay way ka awood badan tahay. Argentiin saan hadday ku socoto waxay caqabad ku noqonay Brazil semifinalka ama finalka. Argentiin tan iyo Maradonahan saadaasha ugu weyn ayaa ah Argentiin inay ku guuleysan doonto koobkan. waxaa la soo gudbiyay in Havillange uu ku dhahay gacanyarihiisa iyo dadka la shaqeeyo, anaga waxaan kaliya rabnay Maradona inuu ka soo qayb galo koobka adduunka. laakiin waxaa noo muuqato inuusan rajaynaynay si khatar badan inuu noqday. mana loo baahnin sidaan. waxaan balan ka qaadnay Mareykanka inuu dheelayo Maradona, waana uu oofinay balantooda. lamadoo ciyaarna wuu dheelay. waxaa la gaaray xilligii aan wax ka qaban lahayn. waxqabadkana wuxuu ahaa in daroogo laga baaro Maradona lagana buriyo tartanka. arrinta aad ayay u fududeed, waana huwaal in wax laga helayo. qaabka dhiigga looga qaaday Maradona waa muuqaal horey aan loo arag oo dad badan niyadooda weli ka go'in. mana xasuusto taariikhda isboortiska iyo kubadda cagta qof sidaan loo galay. kalkaalisada waxay soo gashay garoonka, waxayna gacanta ka soo qabatay Maradona, waxayna u wadatay gudaha si loogu baaro daroogada. runta markii laga hadlo, sawiradaas waxay u egyihiin sida adoo cunugaada yar oo meel u wada fiiriya soo u faraxsan yahay. wuxuuna la dheelayay kalkaalisada, asiga wuxuu u maleynayay in weli ay jirto balantii laga qaaday iyo heshiiskii dhacay. wuxuuna u haystay waxaan jilin la inay yihiin oo dad kale lagu qancinayo. badanaa koobka adduunka ma yaalo qalab waxbaaris adag sida Olombikada oo kale. saas ayuu u maleynayay Maradona. laakiin waxaa lama filaan ku noqotay Maradona marka koowaad iyo adduunka dhanna marka labaad. arrintan FIFA waxay shaacisay maalinkaas in baaritaanada lagu sameeyay Maradona inuu positive yahay oona laga helay daroogo mamnuuc ah oo ay ka mid tahay maadada ephedrine la dhaho. sidaas darteed waxaa go'aan lagu gaaray in Maradona laga reebay ciyaarista koobka adduunka. dabcan dadka badanaa waxay filayeen in Argentina arrintaas shib ka dhihi doonin, xitaa laga yaabo inay ka baxdo
koobka adduunka, laakiin intaasi dhan ma sameynin. Garandona, gudoomiyaha ciyaaraha Argentina, wax dhaqaaq ah ma sameynin, waxaana muuqatay inuu Havilland horay u soo wargeliyay. Maradona wuxuu maalinkaas qabtay shir jaraa'id. Wuxuu maalinkaas ka sheegay shirkaas jaraa'idna waxay warinee qisada u dhaxayso sadarada. Wuxuuna dhahay inuu labadiisa gabdhood ka ballan qaaday inuusan oynin, laakiin wuu ceshan waayay ilmada. Asigoo oynayo ayuuna sii hadlayay. Wuxuuna sheegay maalinka in laga gooyay labadiisa lugood, oona maanta ay tahay maalinkii ugu dambeysay ciyaaryahan ahaan. Wuxuu kaloona dhahay inay khiyaaneen, dhabarkana ka toogteen, balantiina way iga baxeen. Hadda anaga ma difaacayno. Maradona asigaaba jiitay. Hadda ma difaacayno qof ay ku caddahay inuu daroogo isticmaalay. Laakiin asiga markuu hadlayay waxa uu sheegay in la khiyaanay, balantana looga baxay. Maxuuse ugu jeeday hadalkiisa? Taasi waxay la micno tahay in ballanqaad loo sameeyay. Balantana waxay ahayd sida uu qoray qoraaga Ingiriiska ah David Yalop, in ariga laga laabo baaritaanka Maradona iyo daawooyinkiisa, taasoo ka caawinaysay inuu ka qayb galo koobka adduunka, caalamiitadana ka saacidaysay. Hadalkiisa micnihiisa wuxuu ahaa in balan laga qaaday, wixii laga balan qaadayna loo fulin waayay. Saasa Maradona loogu saaray koobkii adduunka. Intii markaas wuxuu iska noqday falanqeeye ciyaareed, haddana tababare. Waad la socotiin qisadiisa inta ka dhiman. Laakiin Argentina markii laga xanimay Maradona lugtii xigtayba waxaa ka adkaatay Bulgaria 2-0. haddana waxaa ka raysay Romania. Ciyaartaas waxay ka dhacaysay garoonka Roosevelt ee Los Angeles ku yaalo. Ciyaartana waxay ku idlaatay 3-2. Romania ayaa adkaatay, inkastoo Argentina ay u joogeen Batistuta, Simeone iyo Arian Ortega. Laakiin xulka Argentina wuu wareersanaa, wuuna marin hawsanaa maqnaanshaha hogaamiyihiisii Maradona dartiisa, oo fadhiyay tareebuunka kaasoo ciyaarta u tabinayay kanaal Argentina ah. Isla markiiba xaaladii xumeed oo uu ku jiray oo ka baxay, wuxuuna biloobay inuu baashaalo oo salaamo shacabka Argentina. Ayagana waxay ku heesayeen magaciisa. Wuxuu ku sii socday dabeecadiisii bashaashka ahayd ee dabacsaneed uu qaaska ku ahaa, sida la wada og yahay. Laakiin si kastaba ha noqotee, Argentina waxaa soo gaartay naxdin xoog badan. Wayna awooday 1994 koobka inay gacanta ku dhigto haddii Maradona laga taaban lahayn. 78 Maradona wuu qaadi karay koobka adduunka, laakiin qadarka ayaa sidaa iska ah.